nabadda iyo wada hadalka iyo wada tashiga iyo isqancinta oo ay Djibouti u mari karto oo ay ku guuleysan kartaan ma jiro mana garanaysid adigu waa ka wada hashiga iyo tashiga iyo isqancinta Ismaaciil uu ka tagay dalka xilka ma haysanayo weligii laakiin dad arinta waxay u taalaa dadka reer Djibouti aniga iyo masaaladee admiyaad cod ka bixisa waxaan aniga taydii baan arkayaa igu duldubaysa Soomaaliland Faysal Ali Waraabe hadduu talinayo waxa uga baahan talada Muuse Biixi oo uu wax la leeyahay halkan adeer iska saganay waxa weeye dadna waxbay wada leeyihiin Soomaaliland buu Faysal la leeyahay waxbaan ku leeyahay inuu kolle Puntland isku qaado isagoo isaaq iska dhigaya oo uu godob iyo eed noo abuuro hadda ciyaalkiina yaryar baala ka hadla adeer raali ka tiyaano raali ka mani waxaan uga dambaynaynaa dawladda deegaanka Soomaaliya dawladda deegaankeeda Soomaaliya waxa ku shaqale dawlad Djibouti dawladda Djibouti iyo dadka Djibouti kaale ama rumayso ama maxaan u sheegay anigu ha sheegan miyaan u diiday markay iyagu inay waxaan ku inay siyaasadeeyaan iyo in ay buunbuuniyaan waan u ogolahay reer Djibouti waxa doonaysaa ma inaan ku yiraahdo isaaqna haytaba oo iyagoo magaca isaaqa ku hadlay waliba miyaad aragtay war wax ka hadlay oo dhul bahanta ama warsagelaya laakiin cid sidii anagoo isaaqa arrinta ka hadlayna ma jiro war dadku isaqaanatay in hebel baa lagu wada qamay cid baan la aqoon miyaad aragtay dhul bahanta dadka aflagaadinayo caayay miyaad aragtay gadabursi dadka aflagaadinayo Soomaaliya caayay waa maxay hadal waxaan isaaqa hay afxumo nabadna way ka kaxaysaa colaadna waxba kaaga ma tarto hadday wax tarayaan kuwa ugu afka xumay waa kuwii siyaad barre la joogay isaaqna geensigiisii iyo fulihiisii iyo nacaskiisii iyo fariidkiisii waxa la kala qoray 80-nadii Faysal Xamar buu joogay markaa ninka maanta guuldayday ee qalaynaya salaad ka tagtay oo bari salaamtu dagaalanto isaaq ismuujinayay tii adeer waqtigaas uu tagay maanta Soomaali inaynu akhun kariim wa ibn akhun kariim kooda noolama anigu ogolay abdallah taala inta ka soo noqono dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay waxa loo diyaargaroobay doorashooyin dalkaasi ka dhacaya fadhigii baarlamaanka Soomaaliya la furay madaxweynaha Soomaaliya ka soo qayb galay qaar ka mid ah xildhibaanada Soomaaliya ayaa ku fooriyay waqti xaaladda Soomaaliya maadaama nin siyaasi oo la socday doorashooyinka la geliyay arrimaha Soomaaliya ilaa hadda maxaa ogaal ka horumar baan arkaa way iyagoo ka xun sidan oo 9 gobol ay shabaab haysato ayaan day ogaa halkay maanta maraysaa waxay ka hadlaysaa doorashooyinkii qaabkayna u galaawan ma wafood miis uga galaysaa ma sidii hore inuu ku celinaa dee inay meel fiican soo gaareen baan rumaysanahay waxaan rumaysanahay inay amnigii nabadgelyadu inay horumar wanaagsan sameeyeen inay ciidamo dhisteen halka marka ay joogto waa laba haddii ay doorasho dib u dhacayso oo aan laga gaarsiinay adeer 97kii kuwii la doortay baa u fadhiya Soomaaliland 97 kaayna doorashada dib u dhacda inay isla ogolaadaan ba faacan haddii doonayaan dee inay sanduuq iyo warqad ku codeeyaan waxaan aaminsanahay boqolkiiba 70 dhulka Soomaaliya waa laga codeyn karaa sida Soomaaliland loo codeeyo soo nabad gobolaan laga codeyn ma jiraan 6 degmo aan laga codeyn bayna 7 degmo aan laga codeyn inaga oo bariya iyaga qaar haddaan laga codeyn 70% ama 80 waa laga codeyn karaa baan qabaa Puntland oo dhan baa laga codeyn karaa iyo Galmudug baa laga codeyn waa xagga nabadgelyada marka laga hadlayo marka dawa geedi socod waa process haddii ay ka badbaadaan inay isku dilaan the only risk waxa weeye wala iskhilaafaya khilaafka xalkiisu ma noqoy in laga wada hadlo oo de wax la isla meel dhigo waa arrin haddii lagu heshiin waayo Soomaalidu sida ay sabaato ay dagaal noqoto taas waa wax kale oo civil war ka dhaco Muqdisho iyo Soomaaliya taas waa arrin kale laakiin intooda kale waxba ka baxo way leeyihiin doorashooyinka waxa sheegeen in deegaanada Soomaaliland ka mid ay qayb ka noqonayaan
Somaliland oo gacan Soomaaliya ku jirin oo madax bannaan oo dal kala ah oo 60 isku biro 19 go'ay si dowladda Soomaaliya ma u rajayn kartaa restaurant saaxiib deegaanada Somaliland ay ka noqdaan doorashooyinka Soomaaliya dadkan imika ku jira meel ku jira labada goloba iyo xukuumadaba miyaa ra'iisul wasaare ku xigeenku ahayn Somaliland u dhalay waxa ka duwanba ka duwan deegaanada lafteeda deegaanada 141 ay rajayn haddii Somaliland lafteeda qayb ka noqoto hay Somaliland lagama qabanayo taa iyaga waxa lagu qaybinayaa Muqdisho in gaar ah doorayso Muqdisho joogto kaydad ma hadba